قصة أبي ذر الغفاري صحابي لورن جري لبا حديث ومن البخاري مسلم ودورنا يا ابن عباس ليه منا مسلم كالجي ورنا يو وبعض النقاط اختلفوا كثير جمعين تودنا رفضين سكستبها تهدينو انت انو ينقو قدن لنا سوق هذا نكينك كويا لا بخاري مسلم بها أبي ذر الغفاري ننحق رادين أيوها أخيرا وحيي من مقالدي مكاهي يساقو في ذني سو يساقو ملايين يشيغان يينو يهي ربع الإسلام في وقت يساقو في حدود علمي بين علماء ذو فسرانو هاي لكن تذكروا ينشيغان يهجرا وهي وحي هاي عهدي تذكر مسلمين تاهي لعدادين أيوه oo wax waliba ay qarsoon oo dadka u yimaada nabiga kaleey salaatu wasalaam tu islaamnimada u laqino oo yiraahdo tolkaas kaga noqo oo markaad maqashaan inaan guuleystay ii kaalaya Abi Dharr wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubcul islaam buu leeyahay islaamka bakii afriya saddex xuniga horeysaba Abi Dharr al-Ghifari magaalada Makka buu soo galay Makka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan kara aanu jirin oo cid ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayadka qaar kood waxay sheegayaan cidna wax maan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yiri mid dadka kamid ah sir buu yiri kaas waa iska daciif waxna ma oge ka haddaad iska weydiiso tiraahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xaguu joogaa malaa waa iska ka xil qarinaya midaan yara daciifsaday buu yiri markii dambe ku yiri ka saabiga maxamed xaguu jooga waaba igu qayliyay buu yiri kiina kor buu qayliyay hada saabi hada balkan diintii ka baxay aynka waaba lagu soo xumo wala tubay bimujarrad inuu cid weydiiyay xaguu laga helaya ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu Cabbaas soo gaaray dabeetana wuxuu ku yiri waa ninkan garaacaysan ma garanaysan warninkan waa nin غفار وقبيلوينكي دعايا بوعان بحي إسلام مركاسي وانن قبيل كيسة أيالين ودادا أي قريش سفر ردو دا مريان سفر كشام مركا لغو صعدا ودادا لمرو قبيل كيسة دقن قريش منطقي أي فهم يسيبو عباس كلها الضاء هدا كما إذن مارمين بولاي الشامين أو سفرتان نينكا توما يسانا وانن بني غفارة مركاسا لايقا فوق يبوي لوغا عنتا لايقا قادا روايات qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaan saxiixaynku waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray Ali ibn Abi Talib oo nin yari oo arkay ninkan qariibka meesha iska fadhiya iska qariibnimada ka muuqato markaas ku yiri malamaad inakeen waa iska daba galay maana wada hadal buu yiri gurigii buu geeyay habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisa iyo wixii qarbadkii yaray intii uu biyo ku sitay wixii buu iska la soo noqday أبي ذر وحكو صار نقضي مكديسي بيتكي ماشي يعني صبكي دمبو هدانا علي صامر إنكيو والولي بياد هلين بودي عيدي دايدايسي إنا كان واكي حيي هبين هي اللي بدنا واعسومي وهالصار نقضي هبين سادحات كي بادر إنكي عاركو عدلادي يسكفر ديا على هدانا عسومي مركي دمبو حكو يدي مياد عيدا دو هلسي وحبطوني هلينو وحان ربوان كويدين أي بلانقاد بودينا تقارينيسو waa ku qarinayaa buu yiri waxaan doonayaa buu yiri ninka diinta cusub la yimi caynkaasiya soo daba gal buu yiri halkaan ku socdo weeyaan waxaan ka shakiyay hadaada arkabuu ku yiri riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin wuxuu yiri sidii nin biyo qubayaan iska dhigaya marka faham meeshu waa minaysantahay isku imanay riwaayadka qaarkoodna wuxuu oranayaa kabahan hagaajinaya hadaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ما هجاكسنة ساوجو سيبان كده بقى على يبوري والله ما نينو استبى الصعدة وهو وضع الصعدة وقرصدقو قارسيسي هينا نو شيغان كارين ماشي كوضع الصعدة كدبنا أستانتي وحبوتو سيدي بوغيبي نبيو عليه الصلاة والسلام سؤاله ودي ويديي حديث كواسوكو بين محل الشاهد كي نصعنا محل الشاهد كوحويا هو السلامي مركو السلامي نبيو عليه الصلاة والسلام وحوت المامي inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guuleystay inuu u yimaadaan waayo nima qariib oo aanu dhalan magaalada caynkana dacwada culaysu mu ku yoocdima ilaalin karayso wuxuu waan noqonayaa laakiin
wuxuu dareensayay dacwadan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa dib uu soo laabtay dabeetana intuu maka is dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahaada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii cabaas baa haddana ku soo baxay waa arrinkan aad tubaysa waa nin reer khafaari miidan garan waa laga tegay tegi maayo buu yidhi la asrakhanna biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana kaga dhex dhawaaqay sidii oo kalea loo tumo haddana cabaaskii baa loo bixiyo u ka tegay yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantahay walow lagu dilaya ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkiladi ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahy wuxuu arkayaa ammaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahmaa kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin kara ama diin gaadhsiin kara inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinayay baaro diinta tan inuu dadka